إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. daawadayaal waa barnaamijkeennii marxaban yaa ramadaan ee aan kusoo dhoweynaynay bisha ramadaan ee barakaysan ee aan uga hadli jirnay axkaamta bisha ramadaanka iyo soonka axkaamtiisa. xalaqadii u dambeysay waxaan uga hadlaynay yuu ku waajibaa soomku. waxaan ka hadalnay inuu soom ku waajibo qofka muslimka ah uusan gaal ku waajibin. waxaan ka hadalnay qofka inuu ku waajibo baaliqa uusan saqiir ku waajibin. waxaan ka hadalnay maaragtay hadduu alla kuu ron yahay qofka caqliga leh inuusan majnuun ku waajibin ama qof waalan. waxaan kaloo uga hadalnay inuu ku waajibo qofkii awooda uusan ku waajibin qofkii aan karin la-aantaas ama awood la-aantaas ha ahaato ama jiro ku meel maaragtay jiro ku timid oo uu rajo ka qabo inuu ka caafimaado ama ha ahaate cajzi daa'im ah oo ah qof waayeel haram ah oo duqoobay amase maaragtay qof qaba jiro aan rajo laga qabin inuu ka caafimaado sida dadka diabetiga iyo wax lamidka ama xubnaha laga bedelay. kuwaas dambe waxaanu nidhi waxaa looga baahan yahay fidye inay bixiyaan oo ah qof miskiin ah booskiisa inay quudiyaan. waxaan meesha kasii wadaynaa axkaamtii xalaqadii hore meeshii aan ku istaagnay ayaan kasii wadaynaa. waxyaalaha loo shardiyo ama shuruudulwujuubka waxaa ka mid ah aliqaama wuxuu qofku soomku wuxuu ku waajibaya qof muqiim ah oo degan aan musaafir ahayn. aayaddii qur-aanka ahayd ilahi waatuu yidhi subxaanaه wa tacaala faman kaana minkum mariidan aw calىa safarin faciddatun min ayaamin ukhar. qofkii idinka mid oo jiran ama musaafir ah isaga waa iska afurayaa facalayhi dushiisa waxaa ah ciddatun min ayaamin ukhar inuu soo qaleeyo maalmihii u afuray. walidaalika culimmadu waxay ka qaateen aayaddaas in shuruudu wujuub ay ka mid tahay aliqaama oo macnaheedu qof degan aan musaafir aan ahayn inuu qofku uu yahay. culimmaduna waa ku ijmaaceen nuqdadaas oo ah jawaasu alfidri lilmusaafir qofka musaafirka inay u bannaan tahay in uu maaragtay in uu afuro inay u bannaan tahay waa mujmacun calayh. meesha ay isku khilaafeen waxaa weeye haddii uu awoodo inuu soomo qofka musaafirka ma waxaa u fadli badan in uu maaragtay inuu soomo mayaa u fadli hadduu awoodo weye hadduu awoodo waa musaafir wuuna awoodaa inuu soomo ma waxaa u fadli badan inuu soomo mase inuu afuro. ogaada hede waxaynu yihi culimmadu waxay isku itifaaqeen lan waa naski aayadda qofka hadduu musaafir u yahay safarkana waxaa xadidaya sida raajixa ah waxa weeye curfiga oo ah caadat annaas wixii loo yaqaan safar. hebel wuu safray wixii la dhihi karo ayaa maaragtay ayaa xadidaya maaragtay safarka. marka hadduu alla kuu roon yahay qofka hadduu musaafir yahay biijmaaci alculamaa wuu afuri karaa. laakiin hadduu awoodo inuu soomo ma inuu soomaa u fadli badan mase inuu afuro ayaa u fadli badan. culimmada qaar waxay leeyihiin sida imaamu shaafici iyo keyrkiisoo kale hadduuba karo inuu soomo inuu soomaa u fadli badan. lanno aayaddii ilaahay wuxuu yidhi wa an tasuumuu khayru lakum inaad soontaan baa idin khayr badan. midda kale hadhow wax ku dhici doona ma uu oga qofka kan waxaa laga yaabaa inuu xanuunsado inuu cuslaado wax lamid. culimmada qaarna waxay dhaheen xadiidkii nebiga soo deliishadeen ilaahay wuu jecel yahay addoonkiisu inuu qaato rukhaskiisa oo maadaama ilaahay u rukseeyey in uu maaragtay soo afuro inuu ruksada qaato ayaa u fadli badan. marka culimmada qaarna kaasay rajaxeen qaarna kaasay rajaxeen. waxaad moodaase in uu yahay wasadka ra'yiga oranaya ra'yi labadaa u dhexeeyo oranaya mar walba waxaa u fadli badan wixii u dhib yar baa u fadli badan. wixii u dhib yar ayaa u fadli badan. hadduu yahay soomka maaragtay safarka uu safrayo safar aan dhib lahayn oo wax yar uu meel dhow uu gaarahayo ama dariiqo muriix ah oo dhib aan lahayn uu ku safrayo hadhowna laga yaabo inuu dhib iyo la kulmo marka maaragtay bisha laga baxo waxaa u fadli badan inuu maaragtay inuu soomaa u fadli badan. haddii dhanka kale safarka uu dhib la kulmayo iyo mashaqo waxaa u fadli badan inuu afuro ayaa u fadli badan. ra'yigaas waxaad moodaa ra'yi ay culimo badan ay rajaxeen sida sheikhulislaam iyo keyrkiis iyo ay rajaxeen inuu yahay ibnu qayim iyo una dhexeeya labadii ra'yi oo hore inuu yahay. ayib masaa'il safarka ku tacalluqda waxaa ka mid ah oo u baahan in la caddeeyo idaa saafara
man laa yajibu calayhi sowm min kabiirin aw mariidin marad laa yurjaa bur'uhu muxuu samaynayaa? dadkii hadaayata aanu nidhi iyaga mar walba fidyay bixinayaan. qof mariid ah marad jiro wuxuu qabaa uusama laba soomi karin oo awalba fidyo bixi baa la yidhi. hadduu soomo qofkaas muxuu samaynaya? hadduu safro muxuu samaynayaa? dabcan waa isla meeshii weeye, ama ha safro kaas ama ha joogo, awalba inuu soomo loogama baahnayn. mar walbana wuxuu bixinayaa fidyo. qofka waayeelkaa ee la soomi waayey da'da iyo qofka la soomi waayey jiro aan rajo laga qabin inuu ka buskoodo, labadaa qof ama ha nagaadeen ama ha safreen, mar walba iyagu miskiin bay quudinayaan bedelkii maalinta. ayib, masale kale iyaduna oo safarka ku tacalluqda, asaa'im, qofka saa'imka ah, almuqiim ee muqiimka ahaa, idaa saafara, hadduu safro ka waran, ahnaaءa الnahaar, maalinta dhexbartankeeda, wuu joogay, wuu soomanaa, qof degan buu ahaa, magaaladiisa degmadiisa jooga, maalinta dhexbartankeeda safar baa ku yimid, arrin safar baa ku dhashay, muxuu samaynayaa? wuu afuri karaa qofkaas. ya falahu an yuftira, wuxuu xaq u leeyahy inuu afuro, laakiin waa goorma? sida culimmadu ay qabaan waxa weeye idaa faaraqa qaryatahu aw madiinatahu aw beladahu, markuu beled ka baxo. beledka markuu ka baxo wuu afuri karaa. beledka markuu ka baxo wuu afuri karaa qofkaas. qofkii safro safar xaaraana ma u bannaan tahay inuu afuro? qofkii safra safar xaaraan ah, wuxuu u baxay inuu hebel soo dilo ama inuu hebel maalkiisa soo dhaco, ma u bannaana. hadduu safrona waa qof camdan maaragtay, haddii intuu safro afuro waa qof camdan kas qof u afuray weeye, dembi weyn oo kabiira ayuuna ku dhacay, maalintiina inuu soo celiyo wey. dadka musaafiriinta ah ee tagaasida iyo looriyada iyo ka shaqeeya magaalo ka magaalo, magaaladan buu ka qaadaa, waxaa laga yaabaa 8 saac inuu safrayo, magaalo hebel buu aadayaa, maaragtay qof dadka noocaasa xukunkooda muxuu yahay? way u bannaan tahay inay afuraan, laanna waa musaafiriin wey. magaaladan buu tagsigan ka baxaya, magaalo fog buu aadayaa, waa u bannaan tahay inuu afuro oo uu qaleeyo. maaragtay waa markay magaaladooda ka baxaanna, magaaladii uu tagsiga ka ahaa uu deganaa markuu ka baxo way u bannaan tahay inuu maaragtay afuro. muddada culimmada fuqahada waxay ka hadlaan laba arrin bay ka hadlaan oo xagga waktiga ku tacalluqda. imise beri ayuu afurnaanayaa qofku hadduu musaafir yahay? waan safray, magaaladeeda ka tegey, magaalo kale aan tegey, ma iska afurnaanayaa mase taxdiid buu leeyahay? inta aan waa masaladaas waxay lamid tahay sida masalada qasriga salaada, culimmadu waa isku khilaafeen. qaar waxay leeyihin 3 maalmood ayuu ahaanayaa musaafir, qaar way ka badan yihin, qaar waa ka yareeyen. lakiin sida raajixa ah, qofki inta uu musaafir uu yahay, intay doonto ahaatee, wuu qasrin karaa salaada, wuuna afuri karaa. ilaahu ay ku dheeraato muddadu hadday doonto, wuu afuri karaa inta uu musaafirka yahay. taas ayaa maaragtay nusuusta u dhow maaragtay, wallahu aclam. safar maxaan ku xadidaynaa? distansiga ama masaafada aan safarka qofka uu ku afuri karo maxay tahay? imise kilomitr weeye aan dhihi karna qofka? hadaayta waataanu niri sida raajixa ah waxa weeye nas kuma soo aroorin. iyadana waxaa xadidaya dhaqanka iyo curfiga diinta islaamkana. waxyaalo badan oo curfiga lagu xadida, curfiga ayaa jira. curfiga waxa weeye caadatu naas, wixii loo yaqaan qofkaa waa safray, wuu afurayaa. safarku ama ha dheeraado ama ha gaabnaado, wallahu aclam. ayib, waxaynu soo sheegnay shuruudaha uu ku waajibo soomku inuu muslim yahay, gaal kuma waajibo, inuu yahay maaragtay qof qaangaaray, saqiir kuma waajibo, inuu yahay qof caqligiisii qabo, qof waalan kuma waajibo, inuu qofku uu awoodo. waxaanu ka saarnay qofkii jiranaa ama jiradaas mid daari ah oo ku meel gaar ha ahaato, ama jiro aan rajo laga qabin, iyo dadka waayeelka lamid ah. maaragtay waxaa u dambeeyey oo aanu ka hadlaynay oo dadka soomka uu ku waajibo inuu yahay qof muqiima oo degan. wuxuuse ku waajibin qofka musaafirka ah. safarka iyo axkaamtiisana wax un baanu ka sheegnay, wallahu aclam. qofka kale oo uusan ku waajibin soomka waxa weeye, ama shuruudu wujuuba asoom waxaa ka mid ah alkhuluwu min almawaanic, in qofkan uu khaali ka yahay, uu free ka yahay, uu ka madax bannaan yahay waxyaalaha mamnuuca ka dhigaya inuu qofkan soomo. oo waa maxay?
xayd waa inaysan qabin qofkii dumarka ahayd dhiiggii caadada ama dhiigga dhalmada qof dumara oo dhalay maxaa yeelay daahir ma ahan maanicaasaa yimid marka iyadoo hadday dhahdo waa iska soomaya xataa kama ansaxayo ya kama ansaxayo maxaa yeelay min shuruudiisa waxaa ka mid ah khuluw almawaanic waxaana maanic baa yimid oo ah dhiiggii caadada oo xaydka ahaa ama dhiiggii dhalmada ayaa yimid waana xaaraam sida salaadu ay uga tahay xaaraan gabar caado qabta inay tukato in ay soonto xaaraan buu ka yahay laakiin salaadaha ma soo celinayso soomka laakiin way soo celinaysaa xadiidkii caaisha radi allahu canha ee saxiixaha ayaa daliil u ah ay tiri waxaana la amri jiray in aanu soo celinno soonka maalmihii dhiigga caadada uu nagu dhacay laakiinna lama amri jirin inaan soo celinno soonka salaadaha inaan soo celinno lama amri jirin laakiin soonka maalmihiisa waan soo celin jirin kaasna wuxuu khaas ku yahay gabadha ku dhaca ama qofka dumarka ah ee uu ku dhacay dhiigga la yidhaahdo caadada af soomaaliga ama dhiigga dhalmada haddii gabadhu ay dhasho maaragtay arrinka ku xiga oo uusan soonku maaragtay ka mid ah maaragtay waxyaalaha qofka uu ku afuri karo ka mid ah oo aan la dhihi karin waajib ayaa jebisay waxaa ka mid ah gabadhu hadday tahay xaamil ama hadday tahay murdic haddii ay xaamil tahay oo ay uurka leedahay ama murdic ay too ay naaska nuujinayso ama jaqsiinayso waxa weeye iyaduna way u bannaan tahay wax dembiyana ma qofkaas looma haysto laa yalxaquhaa fi sawmi maaragtay dembi haddii ay afurto maaragtay marka wayna soomi kartaa laakiin oo tii hore waxay uga gedisan tahay qoftii hore qabtay dhiigga caadada iyo dhiigga dhalmada iyada kama ansaxaynba tan laakiin wuu ka ansaxayaa qofka xaamilka ah iyo uurka leh af soomaalian ku sheegon badanaa waxaa nala tega kelmadaha carabiga lanno wadaadadu badanaa carabiga wax kusoo laqabaysteen marka kelmadihii carabiga hala tega gabadha uurka leh uurkii ilmihii baa caloosha ugu jira ama naaskii bay ilmihii u dhigaysaa hooyada ah waxa weye labadaasba way u bannaan tahay haddii ay dhib dareento nafteeda hadday dhib u dareento iyo haddii ilmaheeda ay naf u dareento labadaba way u bannaan tahay in ay afurto way u bannaan tahay laakiin culimmadu waxay dhaheen markay afurtona dabcan bedelkii ayay qalaynaysaa maalmihii meel bay ku qoranaysaa badanaa su-aalaha u badanoo hooyooyinkuna weydiiyaan bay ka mid tahay ay dhahdo bishii sanadkii hore maanan soomin maaragtay ilma uur baan lahaa la soomi waayey ama sanadkaana maaragtay ilmihii baan jaqsiinaya way u bannaan tahay laakiin waa inay qorato waa inaysan hilmaamin maalmaha qorato haddii ay sanadkii hore uur lahayd markii ay dhasho sanadka kale intaan la gaarin waa inay isku daydo inay ay soonto soo celiso maalmihii haddii weli aysan u surtoobin hade ilaahay subxaanaه wa tacaala laa yukalifu اllahu nafsa ilaa wascahu haddana way sii qoranaysaa ilahu sanawaad ha ku qaadato haddii ay doonto way sii qoranaysaa maaragta hal meel bay culimmadu ay isaga khilaafaan oo ah masale fiqiyo farciya weeye haddii ay nafteeda ay u baqdo marka ay nuujinayso ilmaha iyo markay uurka leedahay waxba looma haysto keliya maalmahaas bay qoranaysaa markii ay u suurtoodayna soo celinaysaa oo ugu dhow aqrab waqti oo ugu dhow ay u suurtoodo ayay soo celinaysaa dayib haddii nafteeda uma baqin maantayba xataa su-aashaa laysoo weydiiyey nafteeda umama baqinba laakiin ilmaheeday u lexe jecelaysatay inuusan naaska uusan ka go-in ama ilmaha uurka ugu jira bay waxay isireen ilmuhuba hooyadu nafaqada ka helaaye yuusan nafaqa dara isku dhicin marka iyadana way u bannaantay inay afurto laakiin culammada qaar ba waxay qabtaa haddii aysan nafteeda u baqin ilmaheeda u baqday soonkiina way soo celinaysaa waxay ku daraysaa maalin bay qof miskiina quudinaysaa maalin ayay qof muslina bay quudinaysaa bedelkiisii walidaalika culimmada qaar ba waxay dhaheen idaa afdarata xaamilka iyo murdicadu khawfan calىa anfusihima naftooda hadday u baqaan aw khawfan calىa waladayhima أو إذا أفضرتا لمصلحتهما مع مصلحة الجنين أو الطفل فإنه يلزمها القضاء maaragtay bay dhaheen maaragtay qaضاء ayaa ku waajiba haddii ay nafteeda keliya ay u baqday qaضاء ayaa ku waajiba qolna waxay dhaheen cinda الجمهور waxay leeyihin nafteeda ha u baqdo ama ha u baqdo maaragtay hadduu alla kuu roon yahay ilmaha kila الxaalatayn waxaa ku laazimaya inay maalin soo celiso laakiin culamada qaar ba waxay leeyihiin
haddii ay ilmaha u baqdo waxaa la raacinaya oo isaguna ku waajiba fidya ayaa ku waajiba ayay dhahayaan. xalaqadeennii maantay in sha allahu tacaala aan uga hadlaynay axkaamta soomka iyo soomku yuu ku waajibaa. in sha allahu tacaala waqtigii aan ugu talagalnay xalaqada ayaa dhammaaday, laakiin weli waa sii socotaa axkaamtii ramadaanku. in sha allah waxaad nagala socotaan tv-ga kalsan, waa barnaamijkeenii marxaban ya ramadaan xalaqadiisii maantay intaas ayaan ku soo afmeeraynaa. waxaan idinkaga tegaynaa ricaayada ilaahay. wallahu aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.